عليكم daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno xogayaha guud ee jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey waraysiga waxa idin qaadaysa anigoo Hayaan Maxamed mudane ku soo dhawow barnaamijka waan maasantiin bahda Ilays aad baan idin soo dhaweynayaa aad baan u faraxsanahay maanta inaan halka ku kulanno khaasatan ayaan oo aan marar badan hawada ka aqaanay marka aad baan salaamaya bahda Ilays mudane waxa uu muddo dheer dagaal ka dhaxeeyay jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo Itoobiya dagaalkaasi oo galaaftay nolosha dad badan oo shacab ah waxa sidoo kale aan la soconaa in aad marar badan aad idinka iyo Itoobiya aad iskaga hortimaadeen wada hadalno balse aan wax hal ah laga gaarin hase yeeshee wada hadalkii ugu dambeeyay ee ka qabsoomay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara waxaad ku soo gaadheen heshiis ma noo sharaxi kartaa waxyaabihii aad ku heshiiseen waa run annaga iyo dowladda Itoobiya dagaalkeenu dagaal ma ahayn maanta iyo shalay bilowday shacabkeenu weeraan 110 sano ayaa hardan jiray hardankaas oo ku saleysnaa shacabkan xuquuqdiisa iyo ka tashigiisa muddo badan buu dagaalka iyo wajiyo badan buu soo maray mar wuxuu ahaa dagaal shacbi ah oo laga bilaabo qarnigii 19aad ilaa 20aad dagaal shacbi ah dooxatooyin oo la iswadaarsanayay mar boqol la rogay buu ku socday markii isbedel Afrika ka dhacay oo qoomiyadihii la gumaysanay la xoreeyay 60kii loo sii socday kontameeyadii adigu dagaalkii labaad adduunka markuu dhamaaday oo Itoobiya dalkeena lagu daray 1942 khilaafkii dagaalkii u horeeyay baa bilowday oo hadda meeshan Baabile agaarkeeda la yiraahdo ka bilowday oo shacabka Soomaaliyeed halkaas iska caabinay sameeyeen waxa ku xigay muxuu ahaa 48 oo magaalada Jigjiga ilaa 24 maartay haliyay lagu daldalay waxa ku xigay oo ayadana socday muxuu ahaa 56 kacdoonkii Nasrullahi kaasoo dad badan oo mas'uuliin kacdoonkaas lagu xirxiray qaarna ay ku leedeen waxa ku xigay kacdoonkii 60kii dhamaadkiisii kaasoo dad lagu gubay magaalooyin badan oo ay shacab kamid ahayd dhagax buur muxuu ahaa shilaabo qalaafo ay magaalooyin badan sidoo kale 63 dagaalkii bilowday ee jabhadii geeshka la oran jiray oo socday ilaa 65tii waxa ku xigay dagaalkii 77 dagaalkaas oo muxuu ahaa ku dambeysay isbedel weyn in Itoobiya ka dhaco oo maamuladii hore meesha laga qaado oo ay soo galaan jabhadii TPLF iyo xulafadoodii aan la filayn ay ka soo gashay halkaas oo markii koowaad shacabka Soomaaliyeed loo galaa doorasho xor ah inay galaan waatii ay dowlad dhiseen maamul dhiseen nidaam dhiseen kadib dagaalka muxuu ahaa 2 sano kadibna waatii maamulkii markaa ka jiray TPLF uu soo weeraray jabhadii dagaalkii markaa dagaalkan hadda maanta joogsaday yaa waqtigaas uu kamay Abriil 20keedii 1994 anagoo magaalada Geergo'an fadhina guddigii fulintoo shir ku jira oo ka hadlaya xasarada taagan kadib markii Sheekh Ibraahim lagu weeraray wardheer ayaa taangeedii muxuu ahaa TPLF ay Geergo'an noogu soo galeen waqtigaas oo bilowday waan xasuusanaa amin duur ah dagaalkaas wuxuu officially u istaagay markii jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ay ku dhawaaqday xabad joojin ku meel gaara kadibna markii labada dhinac ay ku heshiyeen Asmara October 21 1918 marka wada hadaladan saan ku sheegay waxay bilowdeen bishii September 2012 magaalada Nairobi ka bilowdeen muddo 5 sano ay socdeen waa la isku mari waayay waxaana sal u ahaa hal dhinac ayaa doonayay dhinaca kale inuu isdhiibo oo aan la finay isdhiibto ficliyan saasi doonayeen oo aan la finay hadaf ka weyn ba inta leedahay marka ma aqbalin kadib markii isbedel ka dhacay bishii Abriil 2018 dalka Itoobiya isbedelkaas oo ka dhashay kacdoonadii shucuubtii halgamaysay oo ay u horeysay shacabka Soomaalida Ogaadeniya oo 23 sano dagaal aan joogsi lahayn ku hayn nidaamka kacdoonadaas kacdoonkii ka kacay Oromia markii dambe ku darsantay Xabashida Amxaarada ku darsantay qaybo kala duwan oo ka dhacay Gambeella muxuu ahaa Benishangul Sidaama meelo badan taas keentay in isbedel maamulkii hore jiray inuu adkeysan waayo halkaana uu ka abuurmo maamul cusub oo mudane Abiy Ahmed oo madax u yahay maamulkaas oo ku dhawaaqay inuu joojiyo dagaaladii ku hayay shucuubta
isla markaana uu soo dhaweynayay isafgarad iyo muxuu ahaa in xaqa dimuqraadiyadda iyo xaqa shacabku ay leeyihiin uu aqoonsanayo isla markaana jabadihii kuwii hore ku tilmaameen argagixiso uu argagixinimadii ka saaray argagixisanimadii ka saaray isagoo leh waxaan ogolahay in si dimuqraadi xaqooda ay ku raadsadaan taas marka waxay keentay in jawigii uu isbedelo jawi nabadeed uu halka ka abuurmo jabaduna waatay marka ayaduna ka jawaabtay oo tiri waan diyaar baan u nahay waan ogolnahay waatii xabad joojin dhinaceeda ay samaysay marka saasa gogol dhigaas oo ahaa dagaalkaas marka shirka heshiiskan hadda aan galaanaga Ethiopia wuxuu ku salaysan yahay asaaskiisu koow in labada dhinacba wixii dagaalkan asaaska khilaafkan u ah root causes ka waxa la yiraahdo ama maxaa sababta u ah dagaalka inta 100 sano socday in la abaaro la xal loo raadiyo dadkeena way garanayaan wax dagaalka waxa keenay waa koow qodobka labaad wuxuu ahaa in jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ay joojinayso dagaalkii hubaysnaa dowladda Ethiopia ay ballan qaadayso inay xurmeynayso shuruucda caalamka iyo shuruucdeeda oo ay halkaas muxuu ahaa aanay ku joorfaleen shacabkan iyo jabhadda saadaraadna jabhaddu taas hadii jirto jabhadduna ay dagaalka joojinayso waxaa kaloo asayna sildha u ahaa oo asaas u ahaa in jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ay u madax bannaan tahay inay ahdaafteedii siyaasadeed loo abuuray u dhisnayd si nabadgelyo ay ku raadsato ahdaafta siyaasadeed oo laga soo bilaabo xuquuqul insaanka ay ka tashiga xaq ay u leedahay dhulkeeda inay maamusho shacabku ay maamulaan hantideeda waxyaabahaas oo idin soo gali doona intaasna waxay ahayd qodob ka mid ah waxaa kaloo ayadana muhiim ahaa in wada hadalka qodobadii asaasiga ah ee aan ka hadlaynay in laba guddi wadajir loo saaro labada dhinac oo si degdeg ah loo bilaabo oo si tifatiran loo wada xaajoodo ayadoo si nabadgelyo dhulka lagu wada joogo isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay xuquuqdooda buuxda si ku helaan laga wada hadlo laga wada shaqeeyo marka saasuu salka asaas ku ahaa waxaa kaloo laga hadlay arrimaha ciidamada iyo waxyaabo kale badan waxaana lagu heshiiyey in amniga deegaanka gacanta in labada dhinac ay gacan ka wada geystaan marka asaaska heshiisku saas oo ahaa waa tahay weli qodobada lagu heshiiyey maadan si wanaagsan ugu sharaxeen waxaa jiray qodob ah ay ka talinta shacabka kaasoo dadka shacabka ay aad u hadalhayaan maadaama ayna weli wax si fiican uga sharaxa ayna helin waliba dadka qaar ay isleeyihiin ma laga tanaasulay qodobkaas marka maxaa ka jira arintaas oo yacni ma laga tanaasulay mise horta shacabka waa inay ogaadaan ay ka tashiga cid ka tanaasuli karta inay jirin ay ka tashigu ururna ma laha jabhadna ma laha dowladda Ethiopia ma laha shacabka Soomaaliyeed ay aayahooda iska leh ayaga ama ka tanaasuli kara ama qaadan kara taa waa mid weey jabhadda hal xil baa saarnaa inay u hawlgasho dadku inay fursad u helaan in aayahooda ka tashadaan arinta ayada waa ahdaafta siyaasadeed oo aan la loo dhisay weey waa qodobka koowaad weey dastuurka oo aan laf xeerka oo aan laf muxuu ahaa ahdaafta oo aan laf ahdaafta shacabkan waxa weeyaan ay ka tashiga muqaddas buu ka yahay waxaan u jirno sababta aan u jirno kaliya waa inaan taa xaqiijino weey marka oo aan lafna kama tanaasuleyso mana ka tanaasuli karto anagu sidiisa shacabka iska leh ninka qaadan kara ma laha laakiin anagu raadintiisii inaan ka tanaasulo inaan raadin ma ka tanaasuli karno laakiin jabhaddu kama tanaasuleyso waa muqaddas shacabkeena ay ka tashigiisa kama harayno xaq bay u leeyihiin in aayahooda la weydiiyo inay xoroobaan inay Ethiopia kamid ahaadaan inay hadday rabaan dowladda kale ku darsamaan marka shacabka Soomaaliyeed ayaa iska leh ninka qaadi kara ma laha oo aan lafban ka qaadi karin dowladda Ethiopia ka qaadi karin Mareykan iyo Ruush iyo China iyo muxuu la yiraahdo quwadaha waaweyn ba ka qaadi karin marka ninka qaadi kara ka taayada xaq bay u leeyihiin xilliga ay u baahdaan iyo goorta ku haboon ay qaadan doonaan bidnilaahi karin laakiin jabhaddu mabaadiideeda asaasiga waxa qodobka koowaad u ah saddex shay waa koow shacabkan inuu xaq u leeyahay inuu ayisha ka tashado xaqna loo siiyo inuu ayisha ka tashado inuu yahay hal shacab oo Soomaali ah oo midaysan yahay dadka Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed oo aan la kala qaybin karin oo hal ah waa qodobka labaad inay yihiin dad muslim ah oo sunni ah oo xaq u leh diintooda inay si xor ah u prasgareeyaan waxyaabaha asaasiga waa tiirarka ah ee muxuu ahaa dhulka Soomaaliyeed inaan la kala qaybin karo oo hal midaysan u yahay marka qodobada asaasiga ee jabhaddu ay kula galayso dowladda Ethiopia leedahay ahdaaftii siyaasadeed ay ka hadlaysaa way fulinaysaa waxaas asal ah marka yani dadku inay fahmaan weeye
يعني jooxo waxay u dhisan tahay u jirtaa inay shacabkan ayahiisa xaqiijiso haddii taa ka tagtana waxa weeyaan jooxo ma ah wax kale noqonaysa marka haddii saa noqotana in marka shacabkan u sheegno arrinta anaga waa ka tanaasulnay danihiisa raacday imaanaysaa laakiin jooxo waxay u jirtaa shacabkan inay ayahiisa si u hela xaqiijiso ay ka tashugna wuu badan yahay qaybuu kala leeyahay hadba qaybtii tartiibtiisa wadada loo maro laakiin ay ka tahay shacabka waa muqadas weeye waxa kamida si xor ah inuu noolaan karo inuu dhaqaalihiisa xor u yahay inuu maskaxdiisa xor u yahay inuu hantidiisa xor u yahay inuu si xor ah fikirkiisa u jeesan karo iyo inuu hadduu rabo Itoobiya kaba tagi karo hadduu rabo marka ay ka tahay shacabka waa muqadas oo aan kama tanaazulayso waa tahay daawadayaal weli halka aad nagala socotaan waa Ilays TV welina waxaynu ku guda jirnaa waraysigii aan la yeelanaynay xogayaha guud ee jabada wadaniga xorinta Ogaadeniya waa tahay madane ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ka dhawaajiyay hadda ka hor in uu dhamaanba ururadii heshiiska la galay uu hubka ka dhigi doono idinka midaas maxaad ka tirahdeen dawladda Itoobiya anagu waan wada hadalnay asmaran ku wada hadalnay waxbaana ku heshiinay waana taan marka hore idin sheegay oo NLF waxay ka qayb galaysaa amniga deegaankan amnigiisa awl horena way ayada gacanta ku hayso qayb bay ka ahayd haddana qayb bay ka ahaanaysaa marka waxa weeyaan waana dowladda Itoobiya ku heshiin anagu intaas wey ra'iisul wasaaraha Itoobiya hadalladu yiri hadda waxa weeyaan kulay laga yaabo marba hadal guud oo siyaasadeed wey laakiin xaqada waxa weeyaan oo NLF deegaankan amnigiisa ka mid tahay ay kana mid noqonaysaa waa tahay bal idinka iyo dawladda federaalka ee Itoobiya kore heshiis baad soo gaadheen hadda waqti xaadirkana waxaanu ku suganahay magaalada Jigjiga ee caasimadda Somali State ma jira maamulka cusub ee uu hogaaminayo mudane Mustafa Maxamed Cumar wax cilaaqaad oo idinka dhaxeeya waxa weeyaan mudane Mustafa Cumar intuu yimid wuxuu qaaday talaabooyin aad u qiimo badan oo positive ah waxa weeyaan aan aad ugu bogaadinayno waxaan aaminsanahay inuu yahay nin danta dadka shacabka u soo istaagay aad baan u soo dhaweynaa anagu ka jabad ahaan qayb libaax buu ka qaatay wada hadalkii hadda dhacay kaalin weyn buu ka qaatay inuu fududeeyo intaa waxaa dheer markaan nimidna si aad u qiimo badan oo sharaf leh ayuu noo soo dhaweeyay laba goor buu asmar noogu yimid gacan weyn uu ka geystay safgaradka anaga iyo dowladda Itoobiya markii dambana waxa weeyaan in yani jabhada la soo dhaweeyo oo halka ay timaadana gacan weyn buu ka geystay halka markaan nimidna si sharaf leh ayuu noo soo dhaweeyay qayb buu ka qaatay dejinteedii wixii ku saabsanaa danta guud ee dalkan iyo arrimaheennana waxa weeyaan waxa la dhisi doona guddi isku dhafa oo ka wada hadla qaabkaan wada shaqeyn lahayn qaabkaan soo afgar laakiin guud ahaan afgarad guud oo walaaltinimo ayuu xaqiis ka muujiyay anaguna waan u muujinay waxaan rajaynaynaa in maaragtay muddada uu xukunka hayo labada sano hadda ah kumeel gaarka inta doorashada laga gaaray inaan si aad u qiimo badan wanaagsan wada shaqeyn doono asaga iyo xubnaha maamulkiisa aad baad mahadsan tahay dad badan oo shacab ah oo yani dadka deegaanka degan ah iyo dad kale oo waliba Soomaaliyeed oo dadka meeshan degan ahayn dad badan waxay yiraahdaan NLF way soo xarootay maxaa la dhahaayay waxay noogu maqnayd away way soo dhiibtay wax noocaas ay yiraahdaan bal dadka Soomaaliyeed maxaad oran lahayd horta waxa weeyaan ilmuhu markuu dhasho hadii la filo inuu geel raaco waxa weeyaan waa nasiib darro weey NLF waxay soo waday waxaan soo wadinba hadda saddex waxay joogtaa sabtida xadaba Jigjiga timid maantana waa sabti Sooma 5 maalmood marka anaga warsugaan insha Allah waxaan qabanaynay waxaan dadka ugu taaganay waxaan tari doonay waxaan soo wadno biidnillaahi kariim afcaasheeda muujin doonta hadda waxaan sameeynaa macna ma sameynayso oo NLF waxay u taagan tahay danta shacabkan xuquuqdiisa amnigiisa noloshiisa horumarkiisa isbedel degdeg ah ay dadka shacabkeenu dareemi doonaan insha Allah waana waxay u dhimanaysaa u dagaalamaysaa waad mahadsan tahay bal muxuu yahay hamiga dheer ee jabada wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo maxaad qayb ka qaadan doontaan siyaasadda isbedelada soo socda hamigeenu waa cad yahay waxaan u baahanahay dad Soomaaliyeed oo xagga maskaxda muruqa iyo aqliga xorka ah oo midaysan oo walaalo ah oo dadyowga adduunka si u noolaada haday miil dheerayn sharaf ku nool xor ah ayahooda ay gacanta ku haysta khayraadkooda gacanta ku haysta noloshooda dhaqaalahooda waxbarashadooda dadnimadooda waana say ahaan jirta way
boqol sano ka hor geeska Afrika shacabka Soomaaliyeed jooga waxa weeyaan uu ka muuqday dad jiro ahaa haddana oran karin buu asaga xukumi jiray geeska Afrika marka shacabkan sharaftiisii haybadiisii iyo midnimadiisii uu awoodda ballaaran ku lahaa ilaa China uu la ganacsan jiray ilaa muxuu ahaa Samarand uu ahaa dad la yaqaano quwada waaweyn oo sheentay ku soo duulan jabiyay ilaa Axmed Guri wad maqlaysan sharaftii haybadii dadka inay soo noqoto ay dad kamid ah dad yooga adduunka ay muxuu ahaa madax kuru taagay kamid noqdaan way hamigeenu saas way waa tahay ona lif ma ku rajo weyn tahay inay ka qayb gasho doorashooyinka waqtiga soo socda dhici doona haddii aadan maamulka dalka kaalin ku yeelan oo aadan doorashooyinka dad ka qayb gasho aadan awooddaada aadan meesha ka soo bixin ujeedooyinkaaga ma qaban kartid marka ONLF way ka qayb galaysaa doorashada wayna u tartamaysaa biidnillaahi kariim ayadoo la kaashanaysa axsaab badan oo Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waliba waxay ku dadaalaysaa in doorashada lagu galo yani midnimada ugu badan oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu ka qayb galo marka waan ka qayb galaynaa biidnillaahi kariim waana ku dadaalanaa inta doorashada la gaarin in ummadda Soomaaliyeed ay yeelato hadaf midaysan cod midaysan midnimo dhammaan Soomaalida dalkan degan waa la kala qaybiyay way is wada haysataa cudurro ka yimid xagga ay bariga nooga yimid oo qabiil baan soo dhaxgalay waxaan doonaynaa marka ummad midaysan oo hal hadaf leh oo asxaabteeda iyo yani inuu soo noqon doorashada mid destructive oo Soomaali kala qaybiyo oo noqdo mid Soomaali midaysan ka shaqeyn doona Abdullaahi Raad waa tahay adiga ka shaqsi ahaan waxaad ka mid ahayd asaasayaashii ugu horeeyay ee jabada wadaniga xorinta Ogaadeenaya muddo badan wadanka ma aadan arkin oo waad ka maqnayd marka bal nooga waran dareenkaaga ku aadan imaatinka wadankan waxa dareenkayga ku filan shacabkayga qiimaha badan dareenkay muujinayaan baad ka garan kartaa dareenkayga haddaan arkay maanta gabdhihii shalay dariiqyada sida xun lagu yeelayay oo maanta caalankii oo la xiran oo xor ah oo meeshay rabaan maraya haddaan arkay odayaashii lahaa iscaaya wiilashii nacaaya oo maanta ciimamadooda iyo sharaftooda halkaa ku dhex maraya oo madaxooda ku taagan yahay haddaan arkay wiilashii nafta horeyaasha ahaa ee meydkooda bannaanka inta lagu waro lacaay lagu dhaanta lagu dhultumanayay oo maanta muxuu ahaa ayagoo dharkooda qaba meel walba soo taagan haddaan arkayo kuwii walaalaheen oo la khalday shalay ee cadow dadkooda looga dhigay oo maanta dadkooda ilaalinaya oo difaacaya haddaan arkay ummadii Soomaaliyeed dadkii dhulkan iska lahaa maanta intay isu yimaadaan dantooda ka tashanaya dareenkayga kaasa muujinaya yani farxadayda iyo waxaan ku faraxsanahay marka ma qiyaasi karo dareenkan qabo laakiin waxaan ogahay illusion kuma jiro yani khuraafaad kuma noole wada dheer oo adag inay naga horeyso marka way sii laabaysaa mintidnimadeeda aaminaadaan aaminsanahay ummadan xaqeeda inay raadsato uma malaynayo hadda halkan daartan aan fadhiyaa waxaan ka jeclaan lahaa geerigo in xaruntan ka dhigto bacaadkan dadkayga la seexdo dadkayga way gaajaysan yihiin way daran yihiin way rafaadsan yihiin xoolahoodii waa la baabiyey waxba ma haystaan marka saan dadkeena ay noloshooda u soo celin lahayn yani marka dhinacna waan ka faraxsanahay dhulkayga waan imid dhinacna markaan maqlo warbixinada soo gaaray caloosheedii way rogmanaysaa marka farxad iyo caloolxumo iyo murugo iyo dhibka dadka gaaray dadkii aan aqoon jiray quruxda badnaa ee cadcadaa ee sharafta lahaa markaad aragto ilxumada ka muuqata ay say u egyihiin meelo badan baa ku naqanaysa marka kulley waa dareen farxada waa dareen naxdina waa dareen isku jiran laakiin guud ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta dadkaygu farxadda ka muuqata guud ahaan qalbigayga aad bay u nuurinaysaa okay ma jira waxaa jira dad badan oo maxaa la dhahayay kumanaankum ah oo dhaawacyo ka soo gaareen halgankii dheeraa ama maxaa la dhahaa caruur agoon oo fara badan oo aabayagooda ay ku shahiideen dagaalkay kula jireen Itoobiya marka ma jirtaa wax qorshood u dejiseen dadka ama waxaad isleedihiin dib u dejin baad u sameyn doontaan markaan nimid ba halkan waxaan la kulannay ninkii geeska Afrika u qaabilsanaa arrimaha qaxootiga mudane maxamed daahir afay oo kana tirsanaan jiray muxuu ahaa guddiga wada hadalka mudane maxamed daahir afay iyo madaxweynihii deegaanka mudane Mustafa Umar iyo anigu markii airportkii waxaan ku kulannay Addis Ababa wixii u horeeyay ka wada hadalna wuxuu ahaa kow bal dadkii qaxay si dib u dejin loogu sameyn lahaa inta diyaar oo inay soo noqoto in hawshoodiina durba madaxweynaha iyo ayaga iyo hay'addan samafalka way bilaabeen way bilaabayaan dadkeena dibadda jiray si intii diyaar oo intay ayadu degtay oo meelaha kala degtayna meeshooda si wax loogu tar lahaa intii diyaar oo inay halka soo noqotana si loogu dadajin lahaa ururku durba wuxuu hadda mashaariicda wuxuu bilaabayaa kan asagii dowladda deegaanku gacanna iska siin doonaan
sidii loo samayn lahaa hay-ado samafal oo kala heer ah agoontii naafadii dhaawacii waa mid weeye dadyoogii ku waxyeelooba dagaaladan ee ama xabsi lagu xiray ama jirdil lagu sameeyey ayaguna baaba'san ayaguna waa mid weeye dadkii guud ee dee dacdarada ku dhacday ee cunaqabataynta lagu sameeyey ee xoolahooda la baabi'iyey ee la dhacay ama dagaalku uu ku sameeyey muxuu ahaa internal waxaa la yidhaha refugees IDP oo degaan yani barakac degaan ku dhacay ama ha noqoto dagaaladii gudaha ama ha noqoto deegaanadii qolyaha dariska aan nahay hadda ilaa waxaa la ii sheegay meeshan tulli guuleed inay boqolaal muxuu ahaa kumanaan qaxooti ah joogaan sidaa kale goday kumanaan qaxooti ah jooga waddankoodii gudahooda qaxooti ku ah meel walba magaalo walba dadkii la barakiciyey magaalo walba taasaa ka joogta marka mashaariic degdega ayaa insha allahu maamulka deegaanka aan gacanaan ka siin doono ka qaybgeli doonaa waxaan u tagnay dowladda muxuu midooda Yurub markii hadda heshiis ku dhacayba waxay noo ballan qaadeen inay gacan weyn ka geysan karaan si dib u dhis loogu sameyn lahaa dalkan dowlado badanna saas kale diyaar u yihiin marka waan ka qayb qaadanaynaa shacabkeena si noloshiisa dib loogu soo celin lahaa waxay dhibaato gaadhay khaas ahaan agoonta shalay waataan ka sheegay meeshaas agoonta jooxo waa mid weeye kaa keliya anagu uma dagaalamayna agoon kasta oo dalkan jooga ama ha noqdo kuwii jooxa la dagaalamayey ama ha noqdo kii muxuu ahaa shacabka ahaa ee barakicintani waxaan aabayaashooda naftooda ku waayeen agoon kasta waddanka jooga mashruuc baan ka qaybgalan u samayno agoonta dalkeenna meeshay rabaan aabbahooda ku dhinto yani agoon waa agoon weeye waa waxaan aabbe haysan weeye waa caruurteenni weeye marka noloshoodii waxbarashadoodii horumarkoodii waan ka howlgalaynaa waana number 1 asaaskan ka samaynayna insha allahu marka waan ku talagelaynaa howlaha u horeyn qabanayna wey aad baad u mahadsan tahay mudane ugu dambeyntii bal maxaad la wadaagi lahayd bulshada ku daawanaysa ee Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa bulshada walaalaha ee Soomaaliyeed daawanaysa waxa weeyaan dadku ayaga wax qabsada ilaahayna wuu kaalmeeyaa cid kale waxyaan laga sugin cid wax idin qabanaysa malaha dhulkii ugu qiimo badnaa bad leedihiin beero leh muxuu ahaa xoolo qiimo badan leh macdan leh muxuu ahaa khayraadka ugu badan dhulka ugu badan dhulka Ethiopia number 1 dhulkeena ugu weyn hadda Ethiopia la isku yiraahdo hadda dhulka Ethiopia xayndaabkeeda ku jira dhulka Soomaalida dhulkan deegaankana asaga ugu ballaaran wuxuu ku dhow yahay ilaa 500 kun oo square kilometers Soomaaliya wax yar bay ka weyntahay Ingiriiska iyo Jarmalka iyo isku daray uu ka weyn yahay marka dhul ballaaran maan haysanaa dhulka ballaaran haddaan ka shaqaysano oo aan xor u noqono waxaan noqon karnaa dadka ugu dhaqaale badan Afrika waa kow dariskeennu aad bay u ballaaran yihiin ganacsi badan haddaan xiriir fiican samayno ganacsi badan baa la abuuri karaa marka fursadahan horyaal aad bay u ballaaran yihiin dhinaca kaleeto tuulooyin xunxun ay caalan waxba muxuu ahayn yaa afreer hebel baa iskala baan hadda rag la isaga leynaya waxba kama jira waxaas uma baahnin tuulo uma baahnin kulligeena oo idil shalan u sheegay naftooriyaasha hal magaalo oo London la yiraahdo 13 milyan baa ku nool waa 80 kilomitir jigjiga oo la yara ballaariyay way marka dhul yarina ma hayso khayraadkeenu ma yara ha ku mashquulina wixii waaga hore loogu talgalay in la idinku kala qaybiyo qabale hebel waxaas waan la dagaalami doonaa shacabkeenu deegaankan waa naga badan yahay wuu naga weyn yahay dhaqaalaheenu wuu naga badan yahay marka sidii aan aqli ugu dar lahayn dagaal dambe ma rabno wiil iyo gabar dambe inay dagaal looga dhintaan ma rabno qoryaha dhiga waxa weeyaan walaalooba midooba saan wadankeena ku hagaagsan lahayn aan ka shaqeyno midda kaleeto dalkan waa hal dal weeye qof kastoo dalka ku nool xaq buu leeyahay waajibna waa lagu leeyahay xaq wuxuu leeyahay khayraadkiisa in waxuu ka helo dowladda maamulkeeda xaqi uu ku lahaa ka helo amni uu ku helo waxbarasho uu ku helo caafimaad uu ku helo biyo uu ku helo waa inuu dadka si siman u wada gaaro wey dhinaca kaleeto dadkan xaq baa lagu leeyahay dowladdu lacag dhulka kama soo saarto waxay wax ku heshaa inay canshuur qaado xoolahooda intay qaado marka inay ugu adeegto wadooyin ugu samayso amniga boolis u samayso muxuu ahaa in caafimaad iskuul ugu samayso marka shacabkuna inay ka qayb qaataan dhaqaalaha inay ka qayb qaataan amniga ka qayb qaataan dowladnimada ka qayb qaataan marka labada xil oo qolo walba saaran inay ka soo baxdo in yani civic order wax la yiraahdo adduunka ka jira shuruucda in la ilaaliyo nidaamka la ilaaliyo haddaad shuruucda ilaaliso shuruucda dowladuna waa inay ilaaliso ay sharciga ka weynaan shacabkana sharciga waa inuu ilaaliyo sharciga raaco labada haddii la isku helo ummaduhu horumar bay gaaraan midda labaadna waxaa weeyaan qofka in la qiimeeyo wey
cabdiraxmaan xilkiisa uu ka gudan waayey hadduu xun yahay laakiin cabdiraxmaan oo reer hebel hala difaaco hala iska daayo cabdiraxmaan hadduu nin fiican noqdana dadku u dhaxeeya hadduu waajibkiisa ka soo bixi waayana kuwa ugu dhowaa inay yidhahdaan naga fadhiiso marka qabyaaladan waa inaan ka korno weeye aan ku xisaabtanno qofka aan walaalkeen aan ku xisaabino muxuu qabtay hadduu ka shaqaynayay dowladda hantidii soo qaaday sidii loogu talagalay cadaalad ma u sameeyey hadduu sharci hayay oo maxkamad fadhiyey ama sharci xukuminayay si cadaalad ma u sameeyey miyuu sameeyey qofku markii saa lagula xisaabtamo oo qofka ugu dhow kula xisaabtamo waxaan helaynaa dowlad horumar keenta nidaam leh sharciga ku dhaqanta shacabkana horumar buu samaynaya marka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay walaalaheen midnimadiina xoojiya qabyaaladda meel idinma gaarsiinayso haddii dowlad qabiil lagu dhisi karo walaalaheen Soomaaliya ku dhisi kari waaye dowlad qiimo badan oo geeska Afrika laga yaqaano oo geeska Afrika gariirisa bay ahayd markii cudurka qabyaaladda uu galayna xarb baa galay hadda 30 sano u dambeeyay wax ku dhow ilaa 1991 dowladii waa la dhisi laayay waxa uu burburtay u dhaqaaq weedan waa reer hebel wey reer hebel waxba kama maqna reer hebel waxba naga maqan waa wax burburiyay ummadda wey aniga wax iga maqan yihiin ana wax iga maqan yihiin biyo ma haystaa iskuul ma haystaa carruurta ma haystaa muxuu nabadgelyo ma haystaa caafimaad ma haystaa waa inaan ku xisaabtamo wey laakiin reer hebel haddana wax naga maqan kursi reer hebel la geeyay waxba kuma aha guriga buu dhisanayaa haddaad reer hebel wax ku wadaan reer hebelnimadu waxay keenaysaa marka dambe asagana inuu sii noqdo kasi reer hebel guriyana u dhiso adna aad gaajooto wixii dadka ka dhaxeeyna waa halka ku baabao marka ummad midaysan oo Soomaaliyeed oo dan leh isku ujeeddo ah dadka kale oo dariskaana ay ku qiimeyn karaan haddaad kala qaybsan tahay oo aad muxuu ahaa aadan macno lahayn cid walba ku maamuli waa lagu kala qaybin dhulkaaga la qaadan waa lagu maamuli marka midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muqaddase aan midowno intaasan dadka Soomaaliyeed sheegaya walaalaheen dariska ah oo laba qaybooda annaga saddex qolob baa darisna la waa Soomaalida walaalaheena aan wada dhalanay oromada walaalaheena wada dhalanay afarta walaalaheena wada dhalanay afarta iyo oromada ku shidig baan isku nahay isku dan baan nahay dhul baa naga dhaxay xad baa naga dhaxay waa la isku khilaafsan yahay khilaafkaas si nabadgelyo ah in lagu xalliyo way waan wada degi jirnay malaayiin sano waan soo wada kornay waan balaaranay waan kala qaybsanay dadyo baan kala noqonay ma kala tagayno marka annaguna aan la fadaanahay walaaltinimo iyo aan idinku baaqaynaa iyo muxuu ah ku shitignimo iyo in wixii dhibo dadka kala dhax jira in nabadgelyo lagu raadiyo qoriga hal la dhigo odayaasha waa la sukeeni wada xaajada lagu dhameeyo dhibka jira dhulku waa naga badan yahay waana wada deeqaa waxa weeyaan danalka weyn baan leenahay cadowyo kale oo naga baxsan baa jira oo intaas boqolaal sano na gumaysanaya aan wada jeesano aan midnimadeeda iyo walaaltinimadeeda soo celino intaasaan leenahay ma ogolin in dad Soomaaliyeed xaqooda loo gafo dhulkooda laga qaato la laayo qaxooti laga dhigo ma ogolin dad Oromaa sidoo kale in dhulkooda laga qaato la laayo qaxooti laga dhigo dad Afar sidoo kale dhulkooda in la qaato la laayo qaxooti laga dhigo marka qolo walbaba cadaalad iyo xaq soor aan sameeyno hal la isu yimaado arinta si walaaltinimo looga wada hadlo waxa soo haray walaalaheen Soomaaliyeed waan wada dhalanay gumaysi baa xariiqay waxaan meesha ka jira wax ka jira ma waxa weeyaan waan is dhalnay dhul baa naga dhaxaya deegaan baa naga dhaxaya dhaqaalaha naga dhaxaya xoolahayga idinka dhoofiye waxa dhoofisana anaga gadana waa isku noolnahay symbiosis baan nahay ma kala maarmayno walaalo Soomaaliyeed oo midaysan baan nahay waan ka qayb galaynaa walaaltinimadiina khilaafkiina inaan wax ka xalino waan idin soo dhaweynaynaa dhulkan waxbaad ku leedihiin dhulkiina la idinku ceelimahay dhulkan kiina waa nagu ceeshaan laakiin anagu dhulkan idinku ceelimayna idinkaas kale waxaan aaminsanahay dhulkiina aan leenahay laakiin idinku waad garan weydeen laakiin anaga gacanta labadan gacmood baan nahay gacantayda bidix ma goynayno idinku hadda dabcan goysaan way go'i weeyeen laakiin way jiraysaa anaga taana gacantayni midig baatiin ma goynayno walaalaheen baatiin waan idin imaanaynaa dhibkiina kamaraan noqonayno cidii dhibin ku wada ma soo dhaweynayno midnimadiina ka qaybgalaynaa waxa weeyaan gabdhaha Soomaalida ilaa Brazil daatan ilaa muxuu ahaa Latin America iyo Sahara Arabta ilaahay ka yaabo waxa qabiilka iska daayo dawladda soo dib u soo noqdo saas hadan ku jirta anaga dan ugu jirtaa waxaan idin kula talinaynaa qabiil meel idin ma geynayo waa inaad midowdaan dawlad xun